السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu waa maxamed wardheere waa barnaamij gaar ah oo aan rabo caawa inaan ummadda Soomaaliyeed kula hadlo oo aan kala hadlo barnaamijkan doorashada. Sidaa la socotaan wadankeenu wuxuu soo maray marxalado badan. marxaladahaas uu soo maray waxay ahaayeen marxalado waqti badan la geliyay oo la soo gaarsiiyay waqti la filayay in wadanku uu noqdo qof iyo cod. balse arrintaa waa suurtoobi weyday waxayna ka suurtoobi weyday mas'uuliyiintii mas'uulka ka ahaa inay dadka qof iyo cod gaarsiiyaan. sidaa la socotaan waxaa la soo maray waqtiyo warlord wadanka ka talinayay. waxaa kaloo la soo maray waqtiyo ay maamul goboleedyo iyo madal waqtiga ka talinayeen. waxaa la soo maray waqti aad la isu jiidayay oo waliba ilaa 2 sano ay gaartay in doorashadii la qabto. gabagabadii hadda waxay maraysaa in dib loogu noqdo madashii looguna noqday. waxaad moodaa 4 sano oo la soo dhaafay inaan la samaynin horumar ku aadan xagga doorashooyinka. caawa barnaamijkan waxa igu kalifay inaan ka hadlo waxay tahay dhibaatooyin aan u jeedo oo soo socda. dhibaatooyinkaas soo socda oo ku soo socota ummadda Soomaaliyeed oo ay ku wadaan shakhsiyaadkii mas'uulka ka ahaa doorashooyinka ama ha noqdeen maamul goboleed ama ha noqdeen dowladda federaalka. barnaamijkan uguma jeedo qolo gooniya, uguma jeedo shakhsiyaad gooniya, uguma jeedo qolo aan weerar ku ahay, balse waxa ii muuqatay anoo ah nin Soomaaliya ama qof Soomaaliya raba dalkiisa iyo dadkiisu inay horumaraan. sidaa la socotaan 2 sano u dambeysay waxaa wadankeena ka socday isqabqabsi aad u tiro badan. isqabqabsigaas oo keenay in doorashadeenu ay 2 sano dib u dhacdo, kii saddexaadna halis loo yahay inuu bilowdo. barnaamijkan aan rabo marka caawa inaan dadka Soomaaliyeed ku baraarujiyo oo hadday maanta faraheena ka baxdo ay ku noqon doonto waqtigii warlordka ama waqtigii qabaa'iladu ay u dagaalamayeen qabiilka. sidaa la socotaan wadda Soomaaliyeed waxay ku heshiisay 4.5 oo muddo badan lagu soo shaqaynayay. si looga baxana mar walba waxaa la kordhinayay ergooyinka si loogu gudbo in gobol laga soo codeeyo, degmo laga soo codeeyo, caasimadda laga codeeyo. balse hadda waxaan u noqonnay in ay iska maamushaan mas'uuliyiintii la rabay inay dadka gaarsiiyaan qof iyo cod. maxaa hadda soo kordhay arrintan igu kalifay inaan caawa ka hadlo? waxaa igu kalifay doorashooyinkii ka bilowday golaha sare ceeb aad u tiro badan baa ka dhacday oo ummadda Soomaaliyeed ka gees ay caawa markhaati ka yihiin, taasoo loo sameeyey qaab aan la kala xishoonaynin ama qaab aysan kuba dheehnayn wax xishooda, qaab aan laga fakerin dadka mas'uuliyiinta oo barnaamijka gacanta ku hayay inay wajigooda iyo waxa ay ka tagi doonaan ay ku reebi doonto qaanjeer aad u weyn oo dhabarkooda ka muuqan doonta. si kastaba ha ahaatee ceebtii laga dhaxlay golihii sanadka oo ay maamul goboleedyadu iyo qolada reer waqooyiga ah oo Muqdisho ku qabtayba la iska maamushay, ceebteedii waxay maanta u gudubtay in golihii shacabka oo ay qabaa'iladu lahaayeen in sidii oo kale la rabo in loo maamusho. dadka Soomaaliyeed maxaa la gudboon? dadka Soomaaliyeed waxaa la gudboon ceebtii sanadka inaan wax ka baranno. ceebtaasoo bilowgeedii ee hadda galmudug ka bilaabatay in senatarkii u horreeyey uu iscasilay.
sababta uu isu casilay ma ahan in uu kursiga rabi waayey ama uu kursigu xun yahay ee macnaheedu waxa weeye nin baa ku qoray si fudud buuna ku helay Soomaalida waxay ku maahmaahdaa geedkii si fudud lagu koro si fudud baa looga soo degaa taa macnaheedu waxa halka ka muuqata in dadkii lagu qoray badankood ay soo daadan doonaan sababtoo ah wax cilmi iyo aqli ku dhisan midna muusan ahayn dadkii la doortay hadday ka soo cararayaan kuraastii sanadka oo lagu soo dadkii lagu qorqoray kuraasta hadday ka cararayaan macnaheedu waxa weeye kuwa dambe oo kuraasta dambe oo golaha shacabkana waa laga carari doonaa sida la socotaan ceebtii koowaad ee kuraasta golaha shacabka waxay ka dhacday xamar ama caasimadda dalka aniga igama ahan inaan dowladda federaalka ama mas'uuliyiin wax ka sheegayo igamana ahan inaan maamul goboleed wax ka sheegayo laakiin waxyaabaha dhabta oo dhacay in dadka Soomaaliyeed ay ka dhargaan xaq baa naloo ku leeyahay inaan waxa khaldan bidhaamino si kastaba ha ahaatee prime minister ku-xigeenka ama prime minister ku-xigeenka Mahdi Guuleed doorashadii loo qabtay ummadda Soomaaliyeed fajac bay ku noqotay waxayna noqotay wax la mid ah ceebtii sanadka ayadana ognahay mas'uuliyiintii kuraasta ku fadhiyay in xataa loo diiday inay tartamaan balse waxa ceebta ka sii badnay dhigay guddigii farsamada ama guddigii electionka oo loogu talagalay inay dadka kala dhexdhexaadiyaan oo waxa khaldan saxaan inay ku dhiiradeen ceebtii indhaha shareernayd oo dadkoo dhan ay u jeedeen in ay yiraahdeen sida saxda ah la soo maray wixii meesha ka dhacana sax bay ahaayeen arrinta dadka Soomaaliyeed waa u jeedaan ceeb bayna ahayd waana ka xunnahay Soomaalida waxay tiraahdaa nuurow nin baa yiri nuurow markaasuu ninkan madow miyaa nuur idiin nin carab ah yiri markaasuu in kaana nuurukum hada fa kayfa dhulamakum haddii uu yahay ninka idin cado ninkan madow oo cadaanta ku sheegaysaan kan madoowi kiina madow seebu ekaan doona haddii marka mas'uuliyiinta u sarreysa dowladda federaalka ay halka marayaan maxay noqon doonaan maamul goboleedyadu maxay samayn doonaan arrinta waa arrinta u dan leeyahay ana u soo maraya khaladaadkii hore dhacay in dadka Soomaaliyeed ay ka foojignaadaan wadankan aan dib loo celinin sida la socotaan arrintii waxa gacmaha loo gashay maamul goboleedyada waana la qaybsaday ummadda Soomaaliyeed dhowrkii maamul goboleed oo Soomaalidu lahaayeen baana loo kala qaybsaday maamul goboleed walbana waxa gacanta loo gashay electionkii ama doorashadii siday doonaan ka yeelaan arrinta marka maxaa la gudboon shacab weynaha Soomaaliyeed maxaa la gudboon ismada Soomaaliyeed maxaa la gudboon aqoon-yahanada Soomaaliyeed maxaa la gudboon qurbo joogta Soomaaliyeed aniga waxay ila tahay haddii ceebahaas hore aan u soo sheegay ay saa u dhaceen haddana ay maamul goboleedyadu rabaan inay ka shaqaystaan oo ayagu ciday doonaan ku soo qortaan sidii sanadkii waxa la geyn doonaa baarlamaanka Soomaaliya dad aan waxna qorin waxna akhrin waxna maqal waxna kala ogeyn sababta loo geynayna ay kaliya ay tahay in uu qof la yaqaan u codeeyo horumar dal loo geeynayo mataqaanaa inuu gobolka laga soo doortay uu wax u qabto kaliya waxa weeye waa lagu dagaalamaya shakhsiyaad baana ku dagaalamaya ceebtaasi ku dhici doontaa marka ceebta dalkay ku dhici doontaa ummadda Soomaaliyeed oo inta la hagardaameynay ku dhici doontaa waxay ku dhici doontaa isimada Soomaaliyeed oo intii waqtigii ilaa carta la soo waday
ummadda Soomaaliyeed gacanta ku hayay maanta electionkan waxaa loo samayn doonaa isima cusub nabadoonna cusub iyo dad cusub oo codeeya waxaa gacantooda laga saari doonaa dhammaan isimada Soomaaliyeed waxaa gacantooda laga saari doonaa dhammaan nabadoonnada waxaa gacantooda laga saari doonaa dhammaan dadka xaqa u leh inay u codeeyaan sidaad ogtihiin waa tii nambarka la badshay tirada la badiyey waa tii la diiday balse tiradii tira xoogaa ka roon baa tiradii tira lagu daray 51 bay ahayd haddana 101 baa laga dhigay balse hadda maanta waxa yaala waxay noqon doontaa in dhaqankii laga boodo in nabadoonnadii laga boodo in siyaasiyiintii laga boodo in aqoon-yahanadii laga boodo in haweenkii laga boodo taasoo la isugu hanjabayo qofka uusan hebel wadan markaa ninka maamul goboleedka madaxda u ahay wuxuu noqon doonaa qofka laga tegay wixii oo dhan waxay ku soo urureen ma ku wataa maamul goboleedka ma ku wataa dowladda federaalka ma ku wataa qof ma ku wataa marka macnihii waxaa dhintay isimadii magacnahoodii baa dhintay nabadoonnadii baa dhintay qabiilkii waxaa dhintay kursiga iska lahaa baa dhintay taa marka haddii ummadda Soomaaliyeed afduubkaasi uu ku dhaco waxaa imaan doona in uu dhumo nidaamka iyo kala dambeynta lagu shaqayn jiray waxaa dhumi doona in la waayo haddii qabiilku isqabto iyo haddii maamul goboleedku isqabto iyo haddii siyaasiyiintu isqabtaan cid dhexaadin doonto ma jirto sababtoo ah horaa loo kala qaybsaday nin walbana waxaa la siiyey intaad haysato allaha kugu anfaco adigu soo saaro saa doontana ka yeel sidaa la socotaan muddadii siyaasadda la isku hayay maamul goboleedyadii dowladda federaalka isku hayeen way qaybsameen maamul goboleedyada laba maamul goboleedna dhinac bay isu raaceen saddex maamul goboleed iyo dowladda federaalka madaxweynaha ka yahay farmaajo dhinac bay isu raaceen waxaa jira heshiis lagu heshiiyey oo aysan dadka Soomaaliyeed ogsoonayn heshiiska lagu heshiiyey oo dadka Soomaaliyeed ogsoonayn waxay tahay qof walbow intaad haysato boob saa doontana ka yeel aan isugu nimaadno Muqdisho codkana ninkii boob badan baa yeelan doona bulshada Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo oo runtii si dhab ah rabaa inaan ugu baraarujiyo haddii nimankan siyaasiyiinta ah oo ragna xamar fadhiyo ragna gobolada fadhiyaan ay arrintaa ku guuleystaan oo ay ka shaqaystaan oo dadka la kala gurto oo dadka ugu liito magacyadooda meesha laga buuxsho ama dad uusan qabiilku rabin ama odayaashu rabin ama ismadu rabin ama aan soo marin processka nidaamkii loogu talagalay aan soo marin la marsiiyo meesha la geeyo tan xamar joogtana ma shaqayn doonto tan maamul goboleedka la joogana ma shaqayn doonto tan degmooyinkuna ma shaqayn doonaan arrintaas marka waxay horseedi doontaa in aanu dib ugu noqonno burburkii 30 sano aanu dib ugu jirnay waxaan rabaa caawa inaan meel dheer gaarsiiyo hadalkayga ummadda Soomaaliyeed hala iska qabto dadkan mas'uuliyiinta ah ama federaal ha ka yimaadeen ama ha ka yimaadeen maamul goboleed systemka jiray aan la burburinin systemka system fiican baa in looga gudbay la isku ogaa balse waxaa muuqata systemkan doorashadan inay noqon doonto doorashadii ceebtu ka dhici lahayd doorashadii la isboobi lahaa doorashadii qof macno leh aan waxba la weydiin lahayn dadka marka macnaha leh oo isimada ah nabadoonnada kaba qabiilada aqoon-yahanada khaasatan dadka iskale kuraasta waxaan idinku wargelinayaa kursigiinu haddiinaan qof macno la geynin qof aan macno lahayn baa tegi doona qof aan macno lahayn hadduu tagana idinna macno yeelan maysaan subaxa dambena waxaa ku xigi doona isimada laftooda in la bedelo oo kuwa cusub lagu dhawaaqo baa ku xigi doona nabadoonnadana waa la bedeli doonaa oo kuwa cusub baa lagu dhawaaqi doonaa sababtoo ah hawshiina idinkoo soo jooga haddii la maamusho de idinna berraa laydin maamulanaya waxaan warkayga kusoo gabagabaynayaa reer Puntland waa meesha keliya oo dhaqanku
boqolkii 80 ka shaqeeyo waana meelaha maanta loogu cabsida badan yahay in la isboobo reer Puntland iyo ismadooda waxaan ku wargelinayaa dadka Soomaaliyeed systemka badana waxa laga daawadaa Puntland waa meelaha dhaqanka iyo systemku wali ka nool yahay way meelaha kala boobka ku badan wararka naga soo gaaraya Puntland waxa ka muuqda boob inuu jiro khaasatan marka ismada reer Puntland iyo waxgaradka reer Puntland waxaan warkay gaarsiinayaa haddaad aqbashaan wax ka hooseeya wixii rasmiga ahaa loogu talagalay in qaabka wax loogu qaybsado iyo qaabkii wax loo soo dooran jiray iyo qaabkii ismada u shaqeyn jireen iyo qaabkii nabadoonnadu u shaqeyn jireen iyo qaabkii qabiilku u shaqeyn jiray iyo qaabkii wax loo dooran jiray iyo qaabkii xildhibaanada loo soo dooran jiray processka ay soo mari jireen qaab ka duwan hadday Puntland ka dhacda Puntland waxay halis u tahay in lagu kala tago marka waa in lagu dagaalamaa waa in la iska dhiciyaa waa in aan la ogolaanin in la boobo waa inaan la ogolaanin sidoo kale international community-ga waxgaradka cid walbo danaysa Soomaaliya cid walbo ay dhageysanaysa waxaan ku wargelinayaa arrinta hal la xoojiyo arrintaas yaan la boobka hal la joojiyo ummadda Soomaaliya yaan la boobin dadka yaan la isku dirin dadka hadhow waxaan la xallin karin yaan la bilaabin dad bay la fududahay inay dad boobaan laakiin hadhow markuu dhib ka yimaado qofka aan wax xallin karinow qofka carari doonow qofka meel gala raadin doonow hadda shida gacantaada hala gelin shida ha bilaabin waxaad ka bixi karin ha bilaabin kursi aad adigu soo qortay iyo nin adigu aad soo qortay marnaba madaxweyne ku noqon maysid laakiin kuraasta la soo wada qorto oo sida nadiifka lagu soo doorto loo bingare dadka codka weydiiso hadaa rabto inaad wax ku noqotid laakiin hadaa rabto corruption iyo bob iyo ninjeclaysi hadaa rabto inaad wax ku noqotaan wixii ka yimaada cidii farafaraysa cidii dadka isku dirta cidii mataqaana dadka waxgaradka daba marta cidii mataqaana nabadoonnada daba marta cidii mataqaana dadka aan waxba kala ogeyn ku shaqeysata cidii dhibaato aan jirno abuurta wixii ka yimaada hadhow cidna waxba ha ka siinin waa anigu Maxamed Wardheere oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo kulanti waana xiiso badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh